السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا مقالصة. لمشهد ملايين قف كرسون الدرادة حنونك مسكحة يشدو كله قاعد الشدة الشخصيات أعظم لهين أي سبب كرتا استعمال كتكنولوجيا عصرية للجوجو تعكس جيدة هرمركا البحنمة innovation iyo wax soo saarka isbedelka qaabkii wax loo baran jiray iyo qaabkii ay waxbarashadu ahayd in iska bedesho sidoo kale waa qayb ka mid ah qaybaha wanaagsan ee ay leedahay teknolojiyada muuqaalkeenan maanta waxaan ku eegi doonaa dhibaatada weyn ay ku leedahay isticmaalka teknolojiyada gaar ahaan baraha bulshada da'yarteena anagoo markaasi taxraac ka dhigan doona cilmi baarisyo kala duwan oo la sameeyay warbixintan ayaad kaga bogan doontaa dhibaatada ama faa'iidada uu ku leeyahay daawashada xilligan muuqaalka aad daawanayso maalin walba ayaan aragnaa dhalinyaradeena Soomaaliyeed riwaayado kala duwan oo markaasi ay jilayaan oo ay ka mid tahay waxyaabihii aan filimada ku daawo jirnay taa oo ah in markaasi ay dhahaan dabaq ayaan iska soo tuurayaa caasho ama farxiyo darteeda maxaa yeelay waxa sabab ayaa ah daawashada muuqaalada kala duwan iyo adeegsiga baraha bulshada oo markaasi filimada fake ah oo runta loo ekeysiyay ka daawadaan May sanadkii la soo dhaafay 2023 cilmi baare ahna dhakhtar ku takhasusay qaliimada una dhashay dalka Mareykanka ayaa wuxuu sameeyay cilmi baaris oo markaasi ku ogaanayo ama uu ku shaacinayo xiriirka ka dhaxeeya isticmaalka baraha bulshada ay isticmaalaan dadka teenagerska ama dhalinyarada ah oo aan gaarin 20 sano iyo sidoo kale mental health-ga ama caafimaadka maskaxda cilmi baarahan ayaa warbixintiisa ku sheegay in dhalinyarada iyo sidoo kale caruurta daawata muuqaalada kala duwan sida inay ka daawadaan telefishinada filimada ay daawanayaan sawirada ay ka arkayaan markaasi filimada iyo muuqaalada aadka looga soo shaqeeyay ay ku dhacayso wax la yiraahdo self depression will stress markaasi xasilooni darro sidoo kalena uu ku dhacayo mental illness ama wax loo yaqaan xanuunka maskaxda waxa kale oo ay ka dhaxli karaan buu leeyahay cilmi baarahani in markaasi qofkii qanaacada jirkiisa markaasi uu arko in ay tahay markaasi mid liidata taa oo sababayda muuqaaladan aadka looga soo shaqeeyay oo la soo editgareeyay la soo qurxiyay oo daawanayo isla sidoo kale cilmi baaris laga sameeyay wadanka Mareykanka ayaa sheegayda in ilmaha da'doodu 10 sano ilaa 17 sano ay u dhaxayso ay 95% ay aad u adeegsadaan taleefanada gaar ahaan baraha bulshada ayagoo markaasi ka dhaxli kara dhibaatooyinkii aan ka soo hadalnay sidoo kale cilmi baaris qaadatay muddo 12 sano ah ayaa lagu ogaaday in dhimashada malaayiin gabdho ah oo markaasi isdilay nafsad ahaantooda ay sabab u ahayd markaasi isticmaalka baraha bulshada gaar ahaan aaladan loo yaqaano Instagram-ka maadaama ay arkayaan sawirro kamera qurux badan lagu soo qaaday effects caadiina la soo galiyay yani wax badan editing lagu soo sameeyay ayaguna markaasi ay isu arkaan yihiin qof xun qof markaasi laga qurux badan yahay halka oo markaasi ay ka bilaabanayso kalsooni darrada oo soo kalsoonay shakhsiyadiisa muuqaalkiisa iyo sidoo kale noloshiisaba taa ugu dambeyn qofkii ku sababaysa inuu noloshiisa gooyo isticmaalka social media ayaa sanad walba sababa malaayiin qof dhimashadooda waa sida lagu sheegayo cilmi baaris kala duwan hadii waalid ilmahaagu ay yihiin ilmaha social media aad u isticmaala waxa uu la tali lahaa in aad isku daydo in aad la saaxiibto ilmahaaga waqti aad geliso controlsho waxyaabaha ay daawanayaan hadii kale waxa laga yaabaa inuu ka mid noqdo dadka social media ama muuqaalada ay daawanayaan dartooda nafsadooda u gooyo waxajeedii aad tahay waalid iyo sidoo kale hadii aad tahay qof dhalinyaro oo markaasi aad baraha bulshada u isticmaala in aad muuqaalkan wax ka faa'iiday hadda nagu cusub tahay nagu soo beer hadii asxaabta hore ka mid heedan muuqaalka si faafi like garay asxaabtaadana si gaarsii muuqaalkan muuqaalka xiga intaan kulmi doono waxaan kaga tagay nabadgelyo